kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay xaaladda bariga dhexe dagaalka waxa uu noqday mid si cuslaaday hanjabaado kala duwan ayaa hawada la isku marinaya Iiraan gantaalada sida roobka ayaa ugu durusheynaysa qaybo kamid ah wadamada bariga dhexe sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta maraakiib fara badan oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil ayaa saacadii la soo dhaafay ay gantaal ay la beegsadeen Iiraan iyadoo halkaasi uu jab culus uu ka soo gaaray Yahuudda iyo sidoo kale Mareykanka xogii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona waxa xilligan ka soconaya bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xigaada subscribe inoo taayna muuqaalka inoo share garay laakiin saar soo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaawno labo markab oo nooca shidaalka qaada ayaa xalay lagu qabtay meel u dhow dekada Alfaaw ee koonfurta Ciraaq iyadoo shalay ilaa 3 markab oo nooca ee booyadaha ah lagu duqeeyay magaalada ee agagaarkan Iiraan ee marinka Hormuz iyadoo horey u sheegtay Iiraan in marinkaasi aysan isticmaali karin maraakiibta balse kuwan ee duqeynta ay la beegsatay ay ka dhiga adeegaan isla markaana Israa'iil ay amar ay ku siisay in Iiraan aysan waxba ka qaadi doonin isla markaasina ay soo maraan balse Israa'iil waxay markaan indhaheeda ay ku aragtay awoodda Iiraan ay leedahay sidoo ay ula bartilmaameedsanayso gantaaladeeda iyo sidoo kale hubkeedii culculus Iiraan markaan waxa ku dhacay jab aad u culus iyadoona Iiraan ay dharbaaxa ay ku dhufatay Israa'iil maadaama ay sheeganayeen awood xoogan oo ay rabeen in marinkaasi ay si xoog ah ay ku maraan muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya holac xoogan oo ka kacay labada markab ee lagu weeraray biyaha Ciraaq afayeen u hadlay militariga Ciraaq ee lagu magacaabo General Saad Maan ayaa sheegay in mid kamid ah shaqaalaha maraakiibta uu ku dhintay weerarkaasi 38 kale tan la badbaadiyay afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in markabkan laga leeyahay dalka dibadiisa ay marayeen meel u dhow dekada Alfaaw xilli uu weerarka u dhacayay waxa uu sheegay in afayeenka in arintan ay Iiraan ay sameysay xadgudub uu ku yahay madaxbanaanida Ciraaq iyadoo horey Iiraan uu cad ugu martay in ay marnaba aysan ka aamusi doonin marinkaasi in ay maraakiibta ay leeyihiin Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay sida ay doonaan u isticmaalaan midkii isku dayana ay ku sheegtay in gantaal ay la bartilmaameedsan doonto xilligan Mareykanka ay sidoo kale Israa'iil niyad ay meel la fadhiyaan maadaama halkii marin ay ugu adkaan rabeen ama ay sheeganayeen inay ugu adkaanayaan Iiraan ay meel adag ay ka istaagtay mid kamid ah maraakiibta oo lagu magacaabo Safe Sea ayaa waxa laga leeyahay Mareykanka halka midka kale oo lagu magacaabo Zephyros isna ee laga leeyahay Greega inkastoo maraakiibta ay ku safrayaan caalamka dalal kale arbacadii ay ahayd markii 3 markab oo kuwa shidaalka qaada lagu weeraray aagaga marinka Hormuz ciidamada Iiraan ayaa weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay ku qaadeen degada Salalah sida ay xaqiijisay mas'uuliyiin dalkaasi Cumaan u dhashay wakaalada wararka ee dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegeen in duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka nooca aan duuliyaha lahayn ay si gaar ah u beegsadeen degadahaasi iyadoona halkaasi lagu sheegay inuu qasaaro culus uu ka dhashay waxay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta dalka Cumaan in weerarka uu dhaliyay dab xoogan oo qabsaday haamaha shidaalka lagu keediyo ee dekada saraakiisha dalkaasi Cumaan ayaa laga soo xigtay in dabka uu cagta u mariyay dhowr kamid ah haamihii yeelay qaybaha shidaalka lagu keediyo ee dekada waxaana ka dhashay halkaasi dab aad u xoogan oo sababay qasaare hantiyadeed oo aad u xoogan waxaa sidoo kale jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo warar hordhac soo baxaya ay sheegayaan in hal qof kaliya uu ku geeriyooday tiri intaasi ka badan dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu muujinaya heerka qasaarahaasi uu soo gaaray maraakiibtaasi iyadoo la arkayay muuqaalada in qiica sidoo kale ololka ay cirka isku sii shiriirayeen weerarka oo dhacay galankii dambe ee shalay ayaa dabka ka dhashay waxaana uu ku fiday qaybo kamid ah dekadaasi
dabka ayaa u muuqday mid sii xoogeysanaya oo dhul hor leh ku fidaya, waxaana wakaalada wararka oona ay sheegtay inuu socdo dadaalo lagu xakameynayo khatarta dabka. waxay sidoo kale ay sheegtay in dabka uu yahay mid nool oo xoog badan, shaqaalaha dabdamiskana ay u baahan doonaan waqti dheer si ay u hubiyaan daminta dabkaasi. dabka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa sababay in dhammaan dekedda oo idil uu ku faafo, isla markaana uu qaato waqti aad u weyn ilaa hadda aanan lagu guuleysanin daminta dabkaasi, balse uu socdo gurmadkii ugu xooga badnaa ee lagu doonayo daminta dabkaasi. waxaana la sheegay in gantaalka Iiraan ay ku dhufatay uu ahaa mid aad u xoog badan, iyadoona lagu sheegay sababta dabku u sii xoogeysay in ay ahaayeen in haamo shidaal halkaasi ay ka buuxeen, dabkana sidaasi uu ku sii fiday. diyaaradaha daroonka ee Iiraan oo aad moodo inay yihiin kuwo aan laga hortagi karin ayaa safaf dhaadheer ku garaacaya ilaha tamarta ee gobolka Bariga Dhexe. Iiraan ayaa hadaf ka dhiganaysa xarumaha wax soo saarka tamarta ee wadamada Carabta, gaar ahaan kuwa gacanka Khaliijka, iyadoona ka jawaabaysa duulaanka ballaaran ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay sida wadajirka 28 Febraayo ay ugu fuliyeen gudaha dalkaasi Iiraan, kaasi oo lala beegsaday hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsanaa dalkaasi. Iiraan waxay wadaa argoosi xoogan iyadoo horeyba u sheegtay in weerarada xilligan ay fulinayso yihiin kuwo jawaab celin oo kaliya, balse ay u dhiman yihiin weerarada tooska ah oo dagaalka ay weli aysan bilaabanin. taliska militariga Iiraan ayaa wacad ku maray inaysan ogolaan doonin in dhibic shidaal laga dhoofiyo gobolka ilaa inta ay hogaamiyaasha Khaliijka ka diidayaan in dhulkooda loo adeegsado weerarka lagu hayo ee dalka Iiraan. dagaalka Bariga Dhexe ayaa maanta galay maalinkiisii 13aad, iyadoona uu geystay khasaare aad u baaxad leh oo soo gaaray Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, iyadoona halkaasi hanti fara badan ay kaga gubatay. Iiraan waxay wadaa argoosi xoogan iyadoo horeyba u sheegtay in weerarada xilligan ay fulinayso yihiin kuwo jawaab celin oo kaliya, balse ay u dhiman yihiin weerarada tooska ah oo dagaalka ay weli aysan bilaabanin. taliska militariga Iiraan ayaa wacad ku maray inaysan ogolaan doonin in dhibic shidaal laga dhoofiyo gobolka ilaa inta ay hogaamiyaasha Khaliijka ka diidayaan in dhulkooda loo adeegsado weerarka lagu hayo ee dalka Iiraan. dagaalka Bariga Dhexe ayaa maanta galay maalinkiisii 13aad, iyadoona uu geystay khasaare aad u baaxad leh oo soo gaaray Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, iyadoona halkaasi hanti fara badan ay kaga gubatay. haddii aad dhamaysatay muuqaalkan, aragtidaada inoogu reeb qaybta faalada. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaara muuqaalkeena, fadlan subscribe inoo dhig gambalelkan furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkeena share garay, like inoo sar soo gaara asxaab badan. waad ku mahadsantahay daawashadaada.